waa bishu tahay bishii saddexaad toddobadeedii waa maalin olole ah ololihii aanu qaadi jirnay bil walbeeto oo waliba aan ballaarinay weeye waxaan ugu talagalnay ololahaanu inuu socdo 7 casho 7 casho uu ka kala soconayo daafaha magaalada iyo laamiyada dheerdheer iyo wadooyinka ma jiro qashin meel ku diyaarsan oo dadkan hadda aanu u diyaarinay laakiin wixii dabaylu keentay iyo wixii iska rogo si qaldan u geysay caska baanu rabnaa inaanu ku nadiifino waxaan u digaynaa nimanka wata iska rogooyinka oo magaalada markay ka baxayaan qashinka qaadaya oo ku shubahaya meeshii ciidda ka soo guranayay waxa la rabaa qof walbeetaba inuu ka shaqeeyo nadaafadda qofkii isku taxallujiya hadda ka horna gaadiid baa lagu qabtay lagu xirxiray qofkii isku taxallujiya inuu inta qashin qaada caska ku soo rogo waxaanu ka qabsanaynaa waajibaadka shaqo oo aan leenahay gaari dambe la sii daynayaana ma jiro gaarigii lagu qabta asagoo qashin sida dadweynaha gaadiid kale oo u dhiibtay darawallada waxaan u sheegaynaa inay darawalladii subax ilaahay keena ay qashin ku qaadaan iska rogooyinkii buushkii walbeetaba ay sii marayaan ay qashin ka qaadayaan qashinka waxaa lagu talagalay hal meel god baa loogu talagalay godkaasaan geynaa bil kasta waxaan qabtaa maalin olole ah oo la maran magaalada wadooyinkeeda waxaa ka shari ololaha shirkadda nadaafadda ee caafi iyo dawladda hoose ka shirkad ahaan anagu waxaan diyaar u nahay markasta kaalintayadii iyo ka qayb qaadashada bilicda magaalada inaanu siino dareenka koobaad dardarna gelino waxaan aad ugu mahadcelinayaa dawladda hoose doorkan shariifka ee ka qaadatay arrintaas iyo ilaalinta nadaafadda waxaan ku boorinaynaa bulshada inay la shaqeeyaan shirkadda meeshii qashin yaalana ogeysiisyada ka baxaya idaacadaha iyo telefoonada cabashada kulli ay soo wici karaan wixii cabasho iyo wixii tala inta waa soo dhaweynaynaa dhammaan waxaan ugu mahadcelinayaa marka la maamulka dawladda hoose waxaan rajaynaynaa bulshada inay ka qayb qaadato soona dhaweyso nadaafaddu waa mas'uuliyad wadareed wadooyinka iyo meel kasta shirkaddu waxay leedahay qaadideeda dadkuna waxay leeyihiin soo sheegideeda iyo tusideeda sallallahu sayidina maxamed waa sida loo sheegay waa ololihii campaign-ka ahaa oo bishii mar la qaban jiray tan waxaa sii dheer in ay dadkii maantayto aan rabno inaan u sheegno dadka isku rogooyinka iyo bajaajka iyo dadka iska leh oo magaalada dhexdeeda inta qashimada ka qaadaya dariiqyada ku tuuraya ama ku tuuraya wadooyinka ama meelaha khaldan dhigaya waxaan u sheegaynaa dadkaas ogeysiis tiro badan baa la siiyey waa lagu soo celceshay gaarigii lagu qabto wuxuu mutaysanayaa ganaax wuxuu kaloo mutaysanayaa in gaarigaas qofkaas marka labaad oo lagu qabtana inuu ganaaxiisu intaa ka sii badanayo muwaadin waxaanu kaa rabnaa in aad dalka iyo dadka u tudhid haddii kale waxaa la kulmaysaa ganaaxyo aad u adag intaas waxay naga tahay digniin wayna soo noqnoqoto muddo badan ayaan ku soo celcelinayna baabuurta sida khaladka markii ciidda doonayaan ama doonayaan maartay dhagaxa qashinka inta lagu qaado meelaha khatartaayo ama biyo mareenka ama wadooyinka lagu tuurayo ma qurux badan mana sahlan bilicdii dalkana uma fiicno taas waxaan ugu celcelinaynaa dadkeena shacabka inay ka waantoobaan qofkan ka waantoobina haddii wuxuu kala kulmayaa ganaaxyo iyo xarig buu kala kulmayaa intaa markii laga gudbo maanta ololahan wuxuu soconayaa 7 bari waxaan rabnaa in xaafadaha magaalada looga faa'iideeyo waxayna noqonaysaa mid degmada tiimka fulinta u joogahay ay dhex socdaan oo ay galabtii iyo subaxiiba ay tagi doonaan haddii ilaahay idmo oo aanu dadkan shaqaalaha iyo dabagal aan ku samayn doonaa laguna xisaabtamayo madaxa fayadhowrka sidoo kale ololaha nadaafadda waxaa qayb ka ah oo nagala qayb qaadanaya shirkaddan Treble-B-ga nagu ah ee caafi iyadana waa uga mahadcelinaynaa sida ay noola shaqaynayso awalna haddii degmada iyo nadaafadeeda iyada la wareegtay waxaa la rabaa doorkeeda shariifka in iyaduna ka qaadato intii hore ay soo shaqaysayna waa uga mahadcelinaynaa waxaan saakay halkan ku dahfuraynaa ololihii nadaafadda ee joogtada noo ahaan jiray ee magaalada Gaalkacyo laga sameeyo jiray bil walba ee degmada Gaalkacyo ay sameyn jirtay runtii waxa siyaada ku ah oo aynu markan ku soo siyaadinay qaabab badan oo lagu dardargelinayo oo looga faa'iideynayo dhammaan xaafadaha waxaan shaki ku jirin in ay cabasho ka jiro qashinku inta dad jiro ama magaaladu ay jirto qashinku waa jiraya haddii la nadiifiyo biri waa soo noqonaya saadamba waa soo noqonaya laakiin waxa la rabaa in meeshii loogu talagalay uu qashinku tago ciddii loogu talagalay ay qaado cidda qashinku haysatana waxa laga rabaa ama uu qashinku u yaalo in ay ciddii loogu talagalay wacdo
wixii cabasho ah ee ku saabsan arrimahaas annagu waxaan u xil saarnay shirkadda caafi wixii cabasho ah lambaro cabasho baa jira fadlan dadku ha dhageysteen idaacadaha lambaro gaaban baa jira waxaa la wici karaa 104 ayaa si toosa loo wici karaa wixii cabasho ah ku saabsan waxaanu rabnaa in dhammaan xaafadaha Gaalkacyo ay ka faa'iideystaan loo soo tilmaamo degmada fayadhowrka cidda ugu qaabilsan iyo shirkadda nadaafadaba meeshii qashin lagu arko waxaan kaloo rabaa inaan mar labaad ku celiyo dadka aan loogu talagelinin qaadista qashinka inta gurigan ka qaada guriga ku xiga dhigaya magaalada maalin walba waynu qabanaa hadda stationka wax ku xiran baabuur qashinkoodii wata oo la soo qabtay saakadan qoyan iyo shaladan qoyan waxa weeye digniintii u dambeysay baynu siinaynaa gaariga la qabta bil waa ku jirayaa meesha digniintaas maamulka gobolka iyo ilaahay amniina waa u gudbinay ganaaxyo kalena waa u mudanaya waxaan rabnaa in sharciga la ilaaliyo nadaafadu waxa weeye waa qayb ka mid ah mataqaanaa nolosheena waa qaybaha ugu muhiimsan ee maaragtay laga rabo magaaladan Gaalkacyo inay bilicdeedu isbedesho